بسم الله الرحمن الرحيم qodobada aan idinku hayo qobnaha waaga cusub TV-na waxa kamida doorashada Soomaaliya ee jadwalkeeda soo saaray oo la xaqiijiyay inay dib u dhacday laba sababood awgood farmaajo iyo Fahad Yaasiin oo ku faraxsan oo ku raaxaysanaya doorashadaasi dib dhacda la sheegay kana shaqeynaya oo waliba gacan weyn ka geysanaya sababtuna waxay tahay iyagoo doonaya in Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland isaga maamulkiisa waqti oo ka dhaco oo leeyahay labada sano lagu siiyay way dhamaatay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo wafdi uu hogaaminayay waxay u amabaxayaan oo ay gaarayaan caawa magaalada London ee dalka UK halkaas uu kula kulmay dhigiisa dalkaas Ingiriiska Mr Boris laakiin muxuu ku saabsan yahay safarka Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo dalka Ingiriiska ku tagayo jaariyad Soomaaliyeed sama ka warqabta taliye xilka laga qaaday Cabdullaahi Kulne oo loo yaqaan Jism Maryaxaan ayaa la xaqiijiyay inuu Muuse ku leeyahay 6 guri oo ay ka buuxaan dad maxaabiis siyaasadeed ah kuwaasi oo u xiran isaga oo la jirdiray guryahaas halkee ku yaalaan maxaase guryaha loo tagi laayahay oo ciidamadu ay baari laayihiin ninka sheegtay madaxweynaha Galmudug Axmed Qorqorna waxa uu isku sawiray jiidaha hore ee dagaalka ee Bacaadweyn kadibna markii hoobiye lagu garaacay wuxuu habeennimo taga baxdo isagoo u gudbo magaalada Cadaado Axmed Qorqor ayaa la filayaa inuu u dhoofo dalka Kenya isagoo uga sii gudbay Imaaraadka Carabta si uu halka qaraab uga doonto laakiin arrimaha ugu weyn ku hayo qobnaha waaga cusub TV waxa kamida wasiiradii Galmudug oo aan 4 bilood wax mushaar arag iyagoo baaga muddo ah na dadka shaxaadaya oo Muqdisho iyo Dhuusamareeb iska jooga iyadoo kiradii guryaha lagu leeyahay cuntooyinkii maqaayadaha lagu leeyahay wax shaqaana aan qaban xildhibaanada la xaqiijiyay inay kursigooda xilka weynayaan waxa safka hore ka soo galay ninkan naasista Cabdiraxmaan Dheere ee magaciisa runtii uu yahay Xasan Dhuux halgamaaga weyn ee Cabdiraxmaan Odawa iyo Maxamed Xayir Maareeye waa ragga safka hore soo galay ee la xaqiijiyay in kursiga xildhibaannimada aysan dib ugu soo laabanayn oo kursigooda ay lumiyeen Axmed Qorqor ayaa waxa uu saraakiisha ciidamada iyo odayaasha Beesha Saleebaan ee magaalada Cadaado kala hadlaya qorshe uu muddo ka shaqeynayo oo u dhaxaysay sidii uu uga shaqeyn lahaa ama loo kala dil lahaa beesha Sacad isagoo ugu dambeyn u muuqda ama aaminsan inuu ku guuleystay inay Sacad kala tagaan oo ay culuubaan oo ay qaarna mataqaanaa Puntland raacaan qaarna mataqaanaa ay mataqaanaa dhulkooda Maryaxaan ay qabsadaan kuwa kalena ay shabaab la wareegaan oo la shabaabeeyo laakiin arrimahaas oo dhacaya ayaa Cabdi Qaydiid waxa uu tuuto u gashtay sidii uu kursigiisa senatarka xildhibaanka uu dib ugu heli lahaa oo hawsh taalo oo dhan oo muuqato laakiin sheekooyin kale ayaab kale waxa weeye Axmed Qorqor rag u shaqeeyay uu kamid yahay xildhibaan Maxamed Calool Geel iyo xildhibaan Shuruq Shaare ayaa habeen walba gaalkacay waxay ku qabanayaan shir lagu jaraafaynayo oo lagu dhibaataynayo maayirka magaalada gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan oo ay leeyihiin ama ay ka shaqeynayaan sidii loo fashilin lahaa saacad may og yihiin in senatarka Cabdi Qaydiid u buko uu horseedi karo kala taga Sacad oo ay tahay dantii uu lahaa Axmed Qorqor Mr Ben Hawaas ninka ay u bixiyeen dadka reer Galmudug diyaaradaha qaadka sida ee ka keenay dalka Itoobiya iyo kuwa gudaha isaga kala goosha ee gobolada dalka taga ayaa waxa ay toddobaadii soo socda ka degayaan ay u wareegayaan garoonka diyaaradaha ee degmada Daynile ee magaalada Muqdisho kadib markii uu saxiixay oo uu ogolaaday Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble Soomaalida ku nool dalka Jarmalka waxay noqdeen kuwa ugu waalan qaaradan Yurub ayadoo shalay ciidanka dalkaasi Jarmalka ee booliiska toogteen nin Soomaaliya oo oday waayeel oo Jarmal ah mid ku eriyanayo ninkaas oo dhaawac noqday ayaa isbitaalka la dhigay Soomaaliga ah maalmo ka horna waad ogeeyeen in Soomaaliya waxa kale oo mataqaana Soomaalidii Jarmalka noqdeen kuwa iyaga isdiratooray isku garaaca iyo kuwa gabdhaha intay kufsadaan habeenkii oo dhan loo haysto dambiyo la xiriira waxaana la rumaysan yahay in dhibkaasi uu yahay iyagoo u badan Titanic soo tahriibay oo maskixiyan xanuunsanaya diyaaradaha Mareykankana waxa ay duqeyn la beegsanayaan gobolka Mudug aaga ama saldhigyada ay joogaan kooxaha argixisada Al-Shabaab
oo dagaalkii gobolka mudug lagu jibiyey oo iyagoo habqana hadba meel laga qabsanayo laakiin dagaalka ma cabdi qaydiid iyo axmed macali fiqi ayaa ku jibiyey mise jamaacada ahlu sunna wal jamaaca dad naftood horiyaala oo shahiidiyiina ayaa hadda kacay oo u qalab qaatay siday argixisada al-shabaab uga xorayn lahaayeen galgaduud iyo mudug qodobka ugu dambeeya ee warka madaxdiisa waxaynu ku eegaynaa maxaa ka jira inuu madaxweynimada Soomaaliya sharaxay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa qobnaha waaga cusub TV laakiin qodobka ugu horeeya haddii aan la foguro sida muuqata ay doorashadii Soomaaliya ee la filayay in jadwalkii ay soo saareen guddiga doorashooyinka ay ku qabsoonto waxa cad oo xaqiiqo ah inay dib u dhac ku yimid sababtuna waxa lagu sheegay laba arrimood oo isbarkan kooxda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo waqtiga ridaya oo wax kasta oo mataqaana dib loogu dhigi karo doorashada sameynaya si meesha ay uga saaraan maamulka Axmed Madoobe ee Jubbaland oo waqtiga la siiyay 2 bilood ay u harsan tahay 1 bil oo kaliya qodobka labaad ee ugu weyn ee caqabad ku noqday hanaanka doorashadana waxa uu yahay beesha caalamka iyo lacagihii gudaha ee la doonayay in doorashooyinka lagu qabto waa lacagta laga sugay beesha caalamka iyo tii gudaha dawladda laga sugay labadiiba lama hayo oo lacagtii doorashada lagu qaban lahaa ee lagu socodsiin lahaa waa la waayay waxa kale oo buuqa taagan yahay guddigii doorashooyinka ee reewaqooyiga gaar ahaan Soomaaliland iyadoo guddigii doorashada oo dhanba ay boobeen oo ay saa u haystaan master yakata baru waa ninka la yiraahdo Mahdi Guuleed iyo kooxdiisa sida darteed Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roblena waxa uu socdaa iminka oo uu gaaraya dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London halkaas oo uu qayb geli doono shir ku saabsan arrimaha waxbarashada sidoo kale waxa uu kulmi doonaa dhigiisa dalka Ingiriiska Mr Boris marka doorashadu inkastoo Soomaaliya iminka ay dhaqaale darro weyn ay wajahday oo aysan dadku lacag badan haysan haddana waxa leeyahay ilaa la helo dhaqaalihii beesha caalamka laga sugayay ee doorashada lagu qaban lahaa doorasho ma dhici karto oo waxa laga yaabaa guddigu inay doorashooyin soo saaraan sababaha kale ee doorasho dhici karin waxa weeye madaxweynaha maamul goboleed laftoodii intaan ka ay Axmed Madoobe iminka ay qaraab tagayaan oo dibadda u dhoofayaan oo waxay naawilayaan lacagihii ay u barteen inay ka helaan dalalka shisheeyaha sidii Kenya iminka noqotay dalaal ay mareen dalkii mataqaana Imaaraadka iyo Qatar iyo qaarkood oo u socdo dalka Imaaraadka si ay wax uga helaan qaraab laakiin arrimaha kale ee aan ku soo qaadanayo faahfaahintooda waxa kamid ah waa wasiiradii maamulka Axmed Qorqor ee Galmudug ayaan 4 bilood wax mushaar qaadan wasiiradii laga sugayay shaqo inay qabtaan ayaa keedii guryaha lagu yeeshay oo maqaayadaha cuntada ay ka cunayeen lagu yeeshay oo qaarkood iyagoo baagamuudaha ay waxay dibad ku ciyaarayaan magaalada Muqdisho lacagtii cashuurta ahayd ee la aruuriyana Axmed Qorqor ayaa ku tagfalay oo wuxuu ku gatay dhul weyn ayuu banaadir uga gatay marka Galmudugtii halkaas ay ku dambeysay sidoo kale Axmed Qorqor oo muddo gaalka ay u fadhiyay kala furfurka beesha saacad iyo sidoo isaga hor keenin lahaa ayaa waxa uu mataqaana ugu dambeyn tagay jiidaha hore dagaalka ee bacad weyn isaga oo halkaas markii uu tagay uu isku sawiray kadibna habeenkii hoobiyaha loo garaacay ugu horeysay kadib u baxsaday dhanka baxdo uguna sii gudbay cadaado iyadoo la filayo Axmed Qorqor inuu u qaraab tago dalka Imaaraadka Carabta oo imka wuxuu ku wajahan yahay oo u socda dalka Kenya waa maamul كليسي وسيرة يسوي مشاركة هذا أفر بلوت محاكو حق دونه حل ما نذا وشير أن واحد مشاركة هذا أياكو حق دونته لكن إذا أكلها دي أنا هذا واحد مقطع أحمد أريك اللي هذا عبد حس عوالق يبدي لو توتها ويحرتين سجى أحمد مع الفغنة أي توتها ونحرتين سيدي عبد قيديده وكلها سنة تركيسة أحمد مع الفغنة وهو توتها ويحرت الشيقين وهيو وسيد الحقيقي ما ملك بلان ويمكن أن مقع وسيرك المدن وكون مقعامين لكن عنده وشقيني وبلان marka cabdi qaydid wax badan oo socdaa waa nin waayeel oo kama war hayo isaga waxay kaga dhigantaa kursigeeyii halaysiiyo oo senatarkii yaamur lay gelin oo tuutaasaas u xirtay laakiin qorshooyinka oo Axmed Qorqor iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay wada wadaan waxa weeye wuxuu doonayaa in ilaa budbud iyo afbarwaaqo iyo deegaankaas saacadka deganna inay qaraacad ku biiraan oo ay caroodaan gaalkacyana ay noqoto magaalo Puntland oo gacanta u gasho
bandiirada iyo gelisoorna mariixaan ay qabsadaan iyo saleebaan oo la yidhaahdo mataqaanaa oo dagaal ayuu mataqaanaa u diyaariyey dhinaca ka xandhaalay dhan walba u imaanayo iyo saaxo ayaa loo diyaariyey inta kalena waxaa leeyahay hobyo iyo wisilna shabaabka ugu talagalay axmed qoorqoor inay gacanta ku hayaan sababaha ay waxaas u dhacayaanna waxaa ka mid ah cabdiqaydiid oo doonayo in loo xoogo kursigii senatarka taasoo ka dhalanaysa in bandiiraley iyo gelisoor iyo waddooyinkaas ay xirmaan taas oo ka dhalanaysa inay sacadkii kala caroodaan oo yidhaahdaan annaga kamid ma nihin maamulkan axmed qoorqoor oo puntland aan ku biirnay arrimahaasi oo dhan ayuu wadaa haddii uu cabdiqaydiid mataqaanaa uu kursiga u boobo isagoo iskaga dhigay nasteex laakiin allaha ugu ballaaran ee uu samaynayo axmed qoorqoor markaad qiimayso waa uun sidii uu beesha isaga hor keeni lahaa maxaa yeelay axmed qoorqoor ka hor dhul sacad shabaab sooma hawaysan jirin iminkana waad aragteen isagoo u fadhiyay gaalkacyo uga shaqaynayay fidnadooda iyo isku dirkooda ayuu ugu dambayn tago isku soo sawiro waan soo laabtay waxyaabaha kale axmed qoorqoor uu samaynaya waxaa weeye rag isaga u shaqeeya oo magaca sacad sheegto oo kii maxamed caloolgel ka mid yahay oo shuluq shaare ka mid yahay ayaa uu gaalkacyo fariisiyey kuwaasi meesha habeenkaa uu nadiifiyey duqa magaalada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan ayay wasaqeeyaan oo loogu talagalay inay ciid ku shubaan habeen kasto gaalkacyo hoteeladooda shirar ayaa ka socda ay kula dagaalayaan cabdiraxmaan sheekh xasan oo waxay lacag siinayaan xildhibaanada golaha deegaanka ay leeyihiin cabdiraxmaan sheekh xasan xilkaa laga qaado 6 bilood hadduu dhaafo xilkaa laga qaado waxaa ka shaqaynaya waa axmed qoorqoor oo qoslaya oo u dhoola cadaynaya cid kasta saacado la kulmo oo aan ogeyn dhagartiisa marka waxaan isweydiinayaa cabdiqaydiid muu garwaaqsanayaa intuu iska ilooba nacaybka oo qabiilada gaarka u qabay reer gelisoor iyo reer bandiiraley muu garwaaqsanayaa haddii xaal sidan ku socday in gaalkacyo uu leeyahay maanta ani beeshayda jufadayda degto oo ganacsiyo dukaamana igu yaalla inay gacanta puntland si sahlan ku geli doonto muu xaqiiqsanayaa reer nimcaalahan iyo reer odowgan 10 ilaa budbud iyo afar waaqo inay ugu dambeyn garaacad hoostigi doonaan muu cabdiqaydiid rumaysanayaa in haddii sidaan wax ku socdaan oo sacad ay ciidamada ka soo baxaan aagga oo sacad la isku diro inay wasil iyo hobyo noqon doonto ama ay geli doonto gacanta al-shabaab halka waxaa la isweydiinayaa kursiga u dhimanaya cabdiqaydiid ee sanatarnimadu maxay u tarayeen markay sacad isdagaalaan oo sacad isqabsadaan oo sida uu rabay axmed qoorqoor wax noqdaan maxay u tarayeen axmed macalaq fiqiisayada galay oo puntland buu u shaqaynaya isagu waa dheeshiisii oo wax aan dhan wuxuu u arkay cadow oo qorshe kaloo wataa oo kooxo سعيد عبد الله الدنيو دمجيد ولا شقينيا ولا قرتي لكن عبد القديد مو اوغيها قرشها سوده اسكو ديركا اي كلا ديلكا باش ساعات نتيجه حماده كا دونت مو اوغيها انت هوري 10 ما فلان 100 انت هوري عيديدا لا دغالay waan dilay halkaasaan ka dhacay cidiyaan kala geeyay ugu dambeyn meeshuu ka gaaray guuluhu ka gaaray waa la ogaaday natiijada ka dhalatay hotelkiisa la fasax loo bixiyay ee jawharo uu ka hayaa Sooma way halgan soo maray marka hadduu maanta isagoo dad ajir yiraahdo sanatarkan xoogaya oo sacad isdilaan oo wadooyinka la iska xirto oo qaarkood Puntland galaan waxa uu dheefi doono cabdiqaydiid natiijadiisa ah mis weydii sida muuqata beesha sacad waxa la doonayaa hurdada dheer ay jiifto inay ka kacdo oo intuu xal ku dhow yahay ay runta u baraarugaan waxa la doonayaa inay garab istaagaan jamaacada ahlu sunnadka ahlu sunniyiinta ee beesha sacad ee shaqawaarista al-shabaab la dagaalaya inaysan inaan lagu qaldin waa laga doonayaa tuutaha cabdiqaydiid axmed macalin fiqiixateen ee dallayda ah ee ugu sawirta ah ee qorshooyinka siyaasadeed ay kala yihiin waxa laga doonayaa in odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka iyo ganacsatadu iyo culimada diinkuba aysan ogolaan isku dirka iyo dulmiga axmed qoorqoor beesha sacad ka dhex wado ila waladi muhiim ah waxa ay xaqiijiyeen oo ay xaqiijinayaan in magaalada muqdisho ay ku yaalaan guryo gaar ah oo u kireysan ninkii xilka laga qaaday ee jismariixaan dadka ugu yeeraan la yiraahdo Cabdullaahi Kulane ee Mareykanka ahaa ee beesha Mariixaan u dhashay ninkaasi ayaa waxa leeyahay guryahaasi muqdisho ugu yaalo 6 kamida ayaa la arkay oo ay ku xiran yihiin dad muddo fog la raadinayay oo dadkooda ka warqabin waxa la isweydiinayaa maxay ku dhacday in dadka muqdisho ay ka dhiidin waayaan guryahaas maxaabista sidoo kale waxa la isweydiinayaa muxuu ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble guddigii uu magacaabay u shaqeyn waayeen war madax bana waxay leeyihiin farmaajo ka hor yimid guddigii waana muuqataa guddiga in la yiri wax baaris ma sameey kartaa inta ay noo joogto qobanaha waaga cusub TV
انت دب دم كل مدة على سو وحدو لي دبش كده امرحدو هنا عيار سيسي ها بقليسو